waxaan jeclay maantana waatan idinku ballan qaadnay shacabka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha asxaabta inaan kulba halka xaaladu marayso idila socodsiina waxa weeye maanta xaaladu waxay maraysaa ilaahay inoo soo meel khatar ay maraysaa horaan idinku sheegay oon idhi muuse biixi wax khayroo ka soo jeeda ma jiro 4 sano iyo barkaas dalka wixii aan yabyabinay ummadda nation biliga sameynay maalinba boolba furfuriyay hadda wuxuu keenay inuu sharci samaysto sharci odhanaya anna waan joogayaa asxaabtana waan baabiinaya meel ay ku taalo sharci ay ku taalo ururo toosa oo la furaya ma jirto waad aragtay intuu dadku kiciyey magacyada la baxay magacyadii magaranaysaayay hobalada la baxay ee ila ururanahay iyagoo sharci haysan kaambeen garaynaya haddaa ay u fiirsataan xaflad kasta oo nimankaasi iyo gabdhahaasi samaysanayaanba waxaa gelbinayaa waxa weeye ee soo dhoweynaya waa reer kulmiye asxaab uu leeyahay inuu samaysto sharci aan jirin buu doonaya inuu isticmaalo wuxuu keenay inuu isku dayo inuu mucaaradka xabad la dhaco inuu musharaxii xisbiga wadani iyo staafkiisii inuu laba gaari mariyo wuxuu keenay inuu ciidamadii kala saaro ciidamada dadka maalinta dhowtay tooganayay ee dadka caayay ee afkii ku hadlayay maxamed saalaha fuul waa xun iyo xunku fuul oo kale ahayd waxa weeye waa rag ka soo jeeda jibadiisa weeye taasi waxay keentay inuu ku dhaco isdifaac taasi waxay keentay markaa inay halkaa yimaadaan dad hubaysan oo daafacaya asxaabta ayaa jooga raggaa uu leeyahay waa beelo oo way difaacaya waxa weeye muwaadiniin reer Soomaaliland baa weeye oo ficilku sameeyey ka xanaaqay baa weeye waxa weeye dhibaatada waxa keenay waxa weeye muuse hadda Soomaaliland muuse maanta aynu gacan midaysan ku wada qaban weyno waxa ogaataan inuu saacadii isaga iyo maxamed kaahin waa ogtiin waa ragii dagaalkii 94 sameeyay saacadii 94 ayay ku celinayaan waxaan idinka maganahay oo ragii xalay toodhan ila soo hadliyay ee lahaa Faysal waa maalintaada ku gunto maanta ni gacanta waxay ugu jiraan ma jiro labadan nin anagu waan ka quusanay ilaa maanta dadkii isxilqaamay ee salaadiinta ahaa ee culimadiinka lahaa ee mushar lahaa ilaa maanta albaabka ma furan waa gardiid horaan igu sheegay wuxuu haystaa Soomaaliland bakhaar uu lahayo ka maqnaa hadda waxaan sheegayaa dadka taageeraya ee ku taageeraya qabiil shakhsiyaadka ee ku taageeraya mansab aan macna lahayn wasiirka uu sameeyaa muuse ma wasiirba wax alla wax macna leeyahay ma jiro dawladii waa ka baabiyay waa dawladda dysfunction kan shaqeyneen ee wax kasta isagu ila booliska ila station booliska ila jeelka Mandela isaga xukuma wax awoodo ka baxsan ma jirto hadda waxaan sheegnaa ka codsanayna dadka reer Soomaaliland maanta waa in cod midaysan inaan aanu burburin labada korneel inaanay dalkeennaga burburin aynu cod midaysan samaysanaa doorashada Soomaaliland ee maanta madaxweynimada waa dawada qureel lagu baxsan karay waa in taa codka saarnaa halkaa hadduu yahay ha yimaado ha tartamo laakiin waa inta baabiinaya ciidamaan samaysanaya waxa weeye dalku maad ka baabiinaysa beelayno han isku nimi wax ku heshiiyey axdimaan samaysanay dastuurka laabtid yaa kalo ilaalinaya marka waxaan dadka maanta ku sheegaya reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa war uu gardaran yahay maanta yaanu tacab qasaan ugu ridin 30 sano waxaan yabinay ku neelo biyo la'aanta
aynu ku lahayn maciisho qaaliga aynu ku lahayn caafimaad la'aanta tacliin la'aanta nabadan dugsiyada taas ay ka dardaarana adduunka maanta oo ogta waxa ka taagan maciisho xuma ka taagan adduunka waxa laga baqayaa in macluul ka dhacdo qorshe dawladeed oo taa ku saabsan ma jirto qorshihiisu waxa weeye inuu kursiga fadhiya nacam waa aad fadhiyeen ma fadhiis xaaraan ku fadhiimays waxaan xalaaleyn ugu dambeyn waxaan jeclahay taageerayaasha labada xusbi isbahaysiga inaan u sheego hanaga degdegina sida khamiistii hore waxaynu inagu sugaynaa dadka ina sharfay ee dalka u soo gurmaday waxay kala yimaadaan muusabix ayaan sugaynaa markaasaynu tala gaadhina insha allahu tacaala arrinteena aan gelinaa si ballaaran u gelinaa laga imanaya gobollo dhan ka dhigi doona insha allahu tacaala aan tusi doonaa inaanu muuse aanu tiqad haysin resign step down aan ku dhawaaqi doona insha allahu tacaala imika dee cali waa oday guurti ahoo wasiir horan odhan maayo la taliyana odhan maaye oday cali sheegayeen runtii si fiican buu uga warbixiyey maalmahan tegey dee waxaanu ka shaqaynaynay inaanu bal wax isu soo dhadhaweyno meeshana ka saarno wax kastoo caqabad ku ah in maaragtay madaxda qarankani ay wada hadasho wada shaqayso iyo sidoo kale in la adkeeyo amniga iyo nabadgelyada magaalada Hargeysa sidoo kalena waxyaalaha keenaya maaragtay midarada ama amaan daradana iyagana meesha laga saaro waxyaalaha wanaagsan ee noo qabsoomay waxa aan ka xusayaa in madaxda xisbiyada mucaaradka ah runtii aanu si fiican isula fahanay arrimaha ammaankooda xaq bay u leeyihiin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii uu horaba mas'uulka uga ahaa inuu sugo amniga iyo ammaanka gudoomiyaasha xisbiyada ayay runtii u tahay oo markaa ciidamo sharciya oo ammaankooda suga ay horan ugu haysteen imankana u haysanayaan sidoo kalena waxaanu heshiis iyo isfaham ku nahay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada sidii markii horeba looga wada shaqeynayay waxaana runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga wadani labadoodaba uga mahadnaqayaa inay si odaynimo leh oo wanaagsan oo danta qarankani ku jirto ay noola fikirayaan oo ay markaa noola shaqeynayaan waxaan doonayaa inaan shacbiga ugu bushaareeyo in arrimihii markaa keenayay in dadku warar isla dhex maraan magaalada inay meesha ay ka saarayso shirarkii aanu galay iyo heshiisyada markaa runtii aanu gaadhnay ee ku saabsan in asxaabta qarankuna ay helaan ilaaladoodii sharciga ahayd ee amnigooda iyo ammaankooda markaa sugaysay wax markaa cid kale oo markaa hubsidatana markaa meesha looga saari lahaa markaa arrintaasi meel fiican oo wanaagsan ayay noo dhigantay waxaa sidoo kale iyaduna xusid mudan in la yaqiinsaday in markaasi lasii amba qaado wadahadaladii siyaasadeed gobashay taalayna laga faa'iidaysto dadkuna aanay moodin in albaabka wadahadalku uu xidhmay odayaashii isxilqaamay iyo odayaashii kale ka horeeyey iyo maaragtay guurtidana Jamhuuriyadda Soomaaliland intuba iyaga oo doorarkooda kala duwan qaadanaya inay markaasi ka shaqeeyaan in wadahadaladii ay dib u bilaabmaan oo arrimaha taagan ee siyaasadeed markaa runtii laga wada hadlo jirtay markuu qeyrkaa sameeyo in ay kula xumaato anigu runtii waxaan u arkaa doqonnimo xisbi xaakimka kulmiye markii mucaaradka ahaa ay iska soo horjeedeen xisbigii udub daahiryaale madaxweynaha ka ahaa ee madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland hore daahiryaale xisbigiisii ay iska soo horjeedeen madaxweynaha maanta jooga mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo oo aan ahayn gudoomiye xisbi isagoo oo aan ahayn musharax madaxweyne isagoo oo ah gudoomiye ku-xigeen xisbi oo kuwa iyaga xidhan maanta ee xamarja ka mid yahay lama yaqaano oo gudoomiye ku-xigeen xisbi ah ee CID-da looga yeedhay wax de maragyo markhaatila bay ahayd aniga madaxweynaha isku deegaan baanu nahay dee raggii isku wareejiyeen maadarradayba u badnaa isaguna dhallinyartuu adeerka u ahaa bay ahay markaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ficiladii ay samayn jireen xisbiga kulmiye anagu weli maanaa samaynin shaani maanaa qarxinin
beel iskumaanaa dirin balaayo kale maanaa samayn waxaad se moodaa xukuumaddu inay iyadu wax buunbuuninayso inay iyadu kala dilayso ciidanka iyo dadka shacabkaa in iyadu tahay tafidmada wadaabad aad moodaa waxaan se annagu u sheegaynaa un ogaalkay ka mas-uul ahaan haddaanu nahay gobolka maroodi jeex mas-uuliyiintiisa haddaan ahay waxaan halkan ka caddaynayaa shacabka jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka maroodi jeex uga caddaynayaa annagu qarannimada jamhuuriyadda somalilan duulimaad kuma nihin ma jeclin inay dadku kala dhintaan ma jeclin qarannimada in wax la yeelo ma jeclin ciidanka kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan iyo shacabka in layska hor keeno diyaar uma nihin inaannu ciidankayaga fadqalallo iyo magacdil iyo bahdil kula dhaqanno waxaanu se diyaar u nahay inaannu madaxda ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan kaamboolkay doonaanba ha ahaadaane inaannu ula dhaqanno si xushmad iyo ixtiraam iyo qarannimo ay ku jirto inaannu ula dhaqannaanu jecellahay